Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa markana iska diiday awaamiirta madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaana uu taagay laba farmidood in uu soo galo Xasan xilligan la joogo. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud caqabad ayuu ka wajahayaa baa la yiri dhanka ra'iisul wasaaraha wixii ku dhacay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee Maxamed Xuseen Rooble oo kale ayaana looga cabsi qabaa. Haddaba sidee bay wax u jiraan? Maxayse tahay waxa aakhiru saaca kala wareejiyay ama waqtiga ugu dambeeya ee markaasi xukuumadda dhammaadkeeda kala wareejiyay Xamse wixii uu sanado u soo ololeynayay ku shaqaynayay raaliga ka ahaa ayuu markana bilaabay Xamse inuu si cad u diido oo uu rajagti siiyo ama uu ka hor yimaado. Warbixin arrintaasi soo bandhigaysa ayaan ku hayaa golaha mustaqbalka Soomaaliyana waxay soo bandhigeen hindiso cusub oo doorashada qof iyo codka la xiriira. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar ayuu ku wajahan yahay. Muxuu ka doonay? Iiraan waxay ogolaatay inay heshiis nuclear la gasho Mareykanka. wararkaas oo dhan ayaa soo koobanaa. Soo dhaw saaxiib haddii aad nagu cusubtahay ku soo biir channelka oo subscribe soo dheh. saaxiibadan u sii share garee waa mahadsan tahay. Waa markaasi 14 July habeen Salaaso ah. taariikhdu intaas ay ku beegan tahay 2026 mowduucana ku soo dhawo oo sii share garee waa mahadsan tahay ku bilaabaya. Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu muddo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee Soomaaliya soo maray tan iyo burburkii waddanka. Khayr ayaa iskoorkaas haystay ninkan ayaa sajabiyay. Laakiin markan waxay u muuqataa in la joogo halkii ugu dambeysay ay ku kala dhamaan lahaayeen isaga iyo tareenka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Ra'iisul wasaaraha waxa uu ka soo horjeestay baa la yiri qodobo dhowr oo dawladdu isku dayeyso ama gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu isku dayayo in xaaladda dalka wax uga bedelo. waana qodobadii uu raaliga ka ahaa markii hore Xamse sida aan xogta ku helayno. kow ra'iisul wasaare Xamse wuxuu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ka dalbaday inuu dhex soo dhigo doorashada isla markaana uu meel mariyo doorasho heshiis lagu yahay. labo inuu joojiyo ku duulitaanka maamulada isaga uu ka soo jeedo Puntland iyo Jubbaland. saddex inuu siiyo awood uu markaasi ku maamuli karo ama xafiiskiisa isaga ku sii haysan karo. Horey intaan oo dhan way uga maqnaayeen baa la yiri Xamse xitaa maamulada isaga uu ka soo jeedo ayuu horey ugu duulay oo weerar afka uu ku qaaday Siciid Dani iyo Axmedoobe uu ku tilmaamay inuu madaxweyne u aqoonsaneen. Siciid Dani uu ku tilmaamay nin careysan haddii aad doontana qarax baa la yiri. Tani waxay muujisay baa la yiri marka in ra'iisul wasaaruhu uu soo noolaaday isaga dhihi jiray Soomaaliya dib ayay u soo noolaanaysaa. hadda reerkiisa daarood ee Puntland iyo Jubbaland waxay leeyihiin Xamse marxuum isaga soo noolaanay horey marxuum uga bixiyay ninkan wiilka Xasan Sheikh xitaa waa ugu yeereen waana erey aflagaada ah markii loo eego in loo adeegsado shakhsi dhan oo madax ah in loogu yeero wiilka hebel uu dhalay oo ugu hadde ma uusan dhalin. Siciid Cabdilaahi Dani iyo ninka la yiraahdo Axmedoobe ayuu caqabad ku ah baa la yiri ninkan oo Xasan nin Yasmaan ah ayuu ahaa sida lagu eedeeyay. waxaase ugu dambeyn hadda uu ka baxayaa baa la yiri xeyndaabkii muddada dheer uu ku jiray isagoo u soo jeestay inuu xorriyadiisa dib u helo isla markaana uu bilaabo in uu si madax bannaan u shaqeeyo. geesta kale muranka doorashada weli waa sii socdaa laakiin golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen hindiso cusub oo loogu magac daray markaasi Transitional Director Elections Model 2026 kaas oo lagu tilmaamay qorshe lagu doonayo in Soomaaliya si tartiib ugu gudubto nidaamka doorashooyinka dadban loona jiheeyo doorashooyin ay shacabku si toos ah ugu codeynayaan wakiiladooda. hindisahan ayaa soo jeedinaya in markii ugu horeysay muwaadinka Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ay codkooda si toos ah ugu doortaan xubnaha baarlamaanka federaalka iyo xubnaha baarlamaanada dowlad goboleedyada iyada oo la ilaalinayo nidaamka awood qaybsiga 4.5 inta lagu guda jiro marxaladan kala guurka ah. golo waxa uu sheegay in qalabkan uu isku dayayo ama aan qaabkan aan raahday waxa uu qaabkan isku dayayaa buu yiri inuu isku dheelitiro baahida loo qabo doorashooyinka dadweyne iyo duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira si aanay u dhicin qalalaase ama khilaaf ka dhasha isbedelka degdega ah ee lagu sameeyay habka doorashooyinka. marka la eego qaabka la soo jeediyay codbixiyaashu waxay isdiiwaangelin karaan ama codbixiyaashu waxay iska diiwaangelin karaan isla maalinta doorashada taasoo meesha ka saaraysa baahida loo qabo diiwaangelin muddo dheer socota. kadib marka ay diiwaangelintu si toos ah u dhamaato qofka waxa uu codeynayaa cidda uu doono ama kursiga uu doonayo inuu codkiisa markaasi siiyo.
hindisuhu wuxuu sidoo kale caddaynayaa in musharaxa hela codadka ugu badan ee kursi kasta uu si toosa ugu guuleysanayo xubinnimada baarlamaanka iyadoo aan markaasi loo adeegsanayn habab kale oo dheeraada oo lagu kala baxo. sidoo kale qorshahan waxaa ku cad in doorashooyinka kala guurka aysan ka qaybgeli doonin xisbiyo siyaasadeed halkii ay xisbiyadu door ku yeelan lahaayeen. waxaa sii jiri doona nidaamka hadda jira ee ku saleysan qoondaynta kuraasta si loo ilaaliyo isu dheelitirka siyaasadeed inta lagu guda jiro marxaladan. doorka odayaasha dhaqanka ayaa isaguna sii ahaanaya mid muhiima maadaama ay sii wadi doonaan mas-uuliyadda qoondaynta kuraasta beelaha iyo beel hoosaadyada, taas oo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu sheegay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta wadajirka iyo is-afgaradka bulshada. Goluhu wuxuu ku dooday in nidaamkan uu yahay mid ku meel gaara oo kor u qaadaya ka qaybgalka shacabka ee doorashooyinka, isla markaana dhisaya kalsoonida loo baahan yahay si mustaqbalka loogu gudbo nidaam doorasho oo buuxa oo one man one vote ah marka ay dalka markaasi si saxan xaaladiisa amni iyo kuwa siyaasadeedba ay usoo hagaagaan, ayuu yiri golaha. soo jeedintan waxay kusoo beegmaysaa xilli ay wali taagan tahay dooda xoogan ee ku saabsan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonto dabayaaqada sanadkan aan ku jirno ama bilowga sanadka soo aadan, iyada oo dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed ee wadanka weli ay markaasi wadaan wada hadallo la isugu soo dhawaanayo isla markaana xal loogu gaarayo xaaladda cakiran ee xilligan Soomaaliya ka jirta.